imika waddankeena wax ka jirta ninbaa warshad keenaya markay muddo socoto qofkan warshad kale ka daba keenaya isla tiyuuna fikirku qofkan marka hore lahaa mid kale ka daba keenaya mid kale tartanku faa'iido iyo khasaare keebuu leeyahay dadka iyo waddanka labadaba horta tartanku sidiisaba waa wax wanaagsan marka xagga dhaqaale laga waayo imika waxaan garanayaa bari anigu kan joogaa barigii maqnaysaa waddanka soo galay cabdiraxmaan tuur uu madaxa weynaha ka hadlaa naxariistay ayaa qoyskiisa waxay ku yidhahdaan waadaa dhaqalyahane waa kula tahay in aynu raashinka waddankii raashinkii baa qaaligaroobay baa la yidhi in qiimo go-aan loo sameeyo maya baan ku odhi waa free market baynu qaadanay free marketkii waxa weeyaan dadka lacagta haystaa markay arkaan in bariiskii loo baahan yaho kii magaalada dadkii ka shaqeynaya aanay ku filayn dee bariis badan bay keenayaan markay bariis badan keenaan magaaladii bariis ka tara bato ama waddankii dabcan markasta buu jabaya dadka ugu jabaya dadkiina way ka faa'iidayaan isagiina market buu dee halay cusub oo magaranaysaa uu wax ka iibiyo horta tartanku ma xuba laakiin tartanka waxa xun ka magaranaysaa haddii saan ku sheegayo iska wadacahe qofkii aan loo ogolayn inuu neefsadaba markuu warshadii sameeyo horna aynu kicina warshadii hore jirtay ay haddii magaranaya soo saari jirtay maxaan ku yidhahdaa allahuma salli calaa maxamed qalimaan ay taahdo waxaynu ku iibin jirnay laba door baynu ku iibin jirnay astoor baynu ka dhigayna inta shirada warshadaasi ka cayso kaasaa xaaraana tartanku wuu fiican yahay laakiin haddana waddankeenu waxa weeyaan waddan aada u yar annagu haddaanu nahay warshada dhaqaaliyahanka waxa aanu nidhahnaa haddii bayd maayo marketka ama suuqa waddan waxaa lagu qiyaasaa kow intu bulshadiisu ama dadkiisu ubaaxad leeyahay ma 1 milyan ba mise waa sida China iyo India billions waa kow purchasing powerkooda itaalka dhaqaale ay haysan wax ku iibsan karaan na intuu leeyahay marka haddii ay مثلا Ethiopia oo kale oo ay 8 milyan ku tiranayaan yihiin haddii loo qaybiyo dhaqaalaha ay helaan qof walba inta kaga soo hagaagta Somaliland baa ka dhaqaale fiican in kasoo cilmeysan aan loo ogin sababtoo ah hadday mushaaharadooda sarreyso Ethiopia inaga mushaaharo sarreyso dadkoodu waagi badiyaba inay waan soo dhoonteen ee waxaad arkaysaa inay mushaaharo inay wixii soo baxaya aanay ku filan weligeed baa weyn laakiin dadka loo qaybiyo qof walba qoriga soo qaybaya inuu yahay dadka badan hase yeeshee dadka badan waxay cunayaan dee qof walba waxbuu cunaya qof walba waxbuu huwanaya intaasoo baa wax baranaysa marka suuq baa furan oo intii wax baranaysa ayaa badan maqlaysa marka nidhaahno waddanka Kuwait oo kale oo ay soo gasho billions ma trillions baa soo galay mugta kumayaal baa soo galay billion oo 5 milyan loo qaybiyo 5 milyan loo qaybiyo qof walba waxa ku soo hagaagay dee waxayna raqam maqal marka wax weyn dadkii ma badna dakhligii soo galay waxa badan marka dadkii wax ka muuqanaya baariga markay ka muuqanayo gaari Mercedes iyo gaari BMW ah mooyaan wax kale taasna hadda inta waxa kale isku weydiinayaan wasaaradda ganacsiga waddan leeyahay ama wasaaradda ganacsiga Somaliland kaalinta ay ka qaadan karto ganacsiga inay ilaaliso qaabka uu socdo iyo diiwaangelinta waxa laga shirkadu iska furtaan iska bilowdaan inay ka ilaaliso sharciga nidaamka ganacsiga kaalinteena ka qaadan kartaa wasaaradda iyo dawladda horta in institutionska amba hay'adaha dawladdu in ay shaqeeyaan waa mid marka la yiraahdo ganacsi iyo marka la yiraahdo warshadeyn labadaba waxa aynu ka fahmay ilaa markii aynu gobol qaadanay in ay iyadu tahay maamulkii wax soo saaray marka waxa jirtay dawladihii civilianka ahaa permit baa loo qaadan jiray inta wasaaradda ganacsiga ka qaadan jiray brisbane soo waariyay permit nasi hatta dawladii waxa soo barnaamijka ahaa permit baa lagu soo waari jiray watii intii wax sameeyay baladii uu sameeyay hase yeeshee marka wax loo baahday aan lacag haysan permit baa soo qaadan jiray marka free ma yahay marka kaasi dhaqaale